السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارته سو هذا ومركله وبرنامج كله iyo Kista TV barnaamijkeena insha Allah taala maanta waxaan rabaa inaan ku eegno arrin yar oo degdeg ah oo ka soo korodhay xagga maxkamadaha iyo immigrationka waxaa soo korodhay in qolyahan la yiraahdo immigrationka executive immigration order baa la yiraahdaa qolyahan ayaa waxay soo saareen in qofka asylum sugayay maxkamadaha maadaama ay xilli badan dheer ay qaadanayaan jaajajka ayaa waxaa la bilaabay in lagu qasbo oo lagu cadaadiyo in ay horay u boobsiiyaan kaysaska weliba in ay diidi karaan kaysaska aan ay dareensan yihiin inaysan xoog badan lahayn oo ay ahsan ahayn cases asylumkooda ama magangelyo doonka qofka soo apply gareeyo applicationka soo buuxsaday case uusan hadday dareemaan judgeka uu dareensan yahay in casekaas uusan tabar badan lahayn in ay maxkamad aysan la sugin oo hearing aysan la sugin oo ay horay ka dhinay gareeyaan qofkana horay laga tarxiili karo ayay soo sheegeen marka dowladda federaalka ah iyo Trump kooxdiisa ayaa waxay isku dayayaan inay ku cadaadiyaan judgeka inay cadaadis oga dhigaan in si dhaqso ah ay u boobsiiyaan kaysaska socda oo horay loo dhammaystiro waxa ay dhacday in hadeer waxa ay bilaabeen in ay sameeyaan in judgeka la dhaho saaxiibayaal dhaqsada sheekada si dadka loogu boobsiiyo oo maaragtay horay loogu dhammaystiro kaysaska markii hore waxaa qasab ahaan jirtay in qofka la mariyo ama la siiyo chance oo hearing ama judgeka uu ku dhegaysto kayskiisa hadda waxaa dhici doonta in judgeka uu aan la siin doonin chance ay maaragtay kaysaska ay weak u arkaan qofka in aan chance kale aan la siin doonin oo dhaqso la dhammaystiri doono qofkaasna waxay affect garanaysaa dadka ama ay saameyn ku yeelan doontaa dadkeenan sharci sugayaalka ah oo derbiga ka soo booday oo imaaday dalkan oo jooga oo sugayo in kayskii go'aan laga siiyo horey waxaan idinku sheegay in badan in soomaalida badankeed aysan qaadanin TPS programka oo ay qaataan waxa loo yaqaano asylum cases oo kayskooda uu yahay case asylum seekers ah ama magangelyo doon bay u badan yihiin soomaalida marka kaysaskaas waxaa la sheegay in 4 milyan oo case ku dhowaad ay maxkamadaha gacanta hadda ku hayaan marka 4 milyan oo case waxay qaadanaysaa baa la yiri 4 sano 5 sano ilaa intay ka soo dhamaystiraan judgeka ay ka soo dhamaystiraan marka waxaa la sheegay in administrationkan ama maamulkan hadda Donald Trump uu rabo in kaysaska la boobsiiyo oo kaysaska ay u arkayaan inay weak yihiin horay looga takhaluso arrinkan dad badan baa ka timi haddii qofka aan chance la siinin hearing ah oo judgeka iyo maxkamadda aysan dhegaysanin kayskiisa dhibteeda ayay leedahay waxaana ay sheegeen in ay rabaan inay u boobsiiyaan kaysaska si ay u helaan kaysaska weaka ay u arkaan oo tacbaanka ah in la tarxiilo marka looyaro ayaa ka hadlay arrinkan ka dooday looyarada waxay sheegayaan waa looyaro immigration ah waxaana ay ku doodayaan in case immigration bahalkii asylum ah oo magangelyo doon ah oo xoog badan in la dhiso hataa looyarada ugu fiican ay ku qaadanayso 50 saacadood ilaa 70 saacadood iska badaa qof miskiina oo derbi ka soo booday bay yiraahdeen oo luuqad aan aqoonin oo ay dhibayso systemkii aan garanaynin maxkamadihii iyo adduunkiisu u kala shaqaynayo aan la soconin qofkaas isaga waaba goonidiisu wuxuu u leeyahayba dhibtiisu caqabadiisu u qabaaba marka dad waxaa jira dad aan lawyer qabsanin lawyerana aan haysanin cid kala talisana aan helin arrinka noocana laakiin apply gareeyay oo buuxsaday cases asylum ah markii hore waxaa dhici jirtay xilligii Biden iyo xilligii Obamaba haddii case-kaaga
maxkamadda federaalka ah oo xaqa u leh in ay ku siiso sharciga dalka maraykanka jaajka haddii uu u arko in kayskaaga uu daciif yahay waxaa dhici jirtay in dib lagugu celiyo oo lagu dhaho soo dhis mar kale kayskan aad soo dhisato hore waa kays tacbaanah bay ahaan jirtay hadda waxaas ma jiraan kaysaska they will sift through it say sheegeen way fiirinayaan markay jegarayaan oo ay arkaan warqadaha iyo docketska ay hayaan maamulka ayaa wuxuu rabaa inuu ku qasbo in jaajajka ay dhaqso wax u kala tuuraan si dadka ay tarxiilayaan ay u farabataan waxay marka ay sheegeen in qofka markii la fiiriyo kaysaskiisa ama kayska markii jaajka uu fiiriyo in meeshii naxariista ay ku jirtay ama janiska uu ku jiray ama wixii week ah ama hataa la dhihi jiray caddaymo keen waxaan aad sheeganayso qof affidavit ka soo qor warqad caddaynaysa inaad maaragtay dhibtan aad sheegayso ay ku hayso hataa haddii aan ku tarxiilno inay dhibaato kugu dhacayso dad baan garanayaa la dhahay haddii hataa aan ku tarxiilno inay dalkii markaad tagto dhibaato ay kaaga dhacayso oo waxaan aad sheeganayso ay run yihiin soo caddee oo warqado intaan u qorray caddayn ah in qofkan dee dhibta uu sheeganayo ay dhab tahay sharcigii lasoo siiyey baa jiray laakiin waxaa hadda ay raadin doonaan judge kasto let's say haddii intaas oo kun oo qof haddii ay maaragtay oo case uu haysto judge walbo waxay fiirinayaan waxaa la caawin doonaa la dhahay qolyo kale oo ka socda immigrationka ayaa la fiirin doona kaysaska marka dadka masaakiinta ay u arkaan inaysan haysanin lawyer fiican in ay kayskooda si fiican aan loo dhisin in hataa waxa laga yaabaa bay lawyeradan ku doodayaan si qalad ah qof dalkiisii dhibaato ka sheeganayay in inti loo qaado hadhowna qofkii lasoo celin kari waayo sida hadda ku dhacday ninka odayga ah loo tarxiilay El Salvador oo madaxweynihii hataa El Salvador uu diiday oo uu dhahay ma soo celinayo sida ku dhacday oo kale already ninkii way dallaceen waxay geeyeen El Salvador si qalad ah ayuu ku baxay maxkamadihii ilaa maxkamadda ugu sarreysa dalka ka doodaysa qofkiina waa la soo celin layahay marka waxay raadinayaan kaysaska dadka kayskooda uu wiiga yahay daaqadda ayaa laga tuuri doonaa dadkana ay maaragtay jaajajkana ay ku cadaadiyaan in kaysaska ay dhammaystiraan laakiin in ay si fiican u dhammaystiraan ma aha inay dadka ay rabaan in kaysaskooda qashinka inta lagu daro horay loo tarxiilo intaas ayaan rabay Soomaali Maxamed inaan idinka dabageeyo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh